يدي وعدي وحوهم الجراء يوسف حلبان أحمد بن علي أحمد محمد وعلي إن شاء الله تعالى علي بوري أحمد محمود حسن بارسو أحمد محمود حسن بارسو أحمد محمود حسن بارسو أحمد محمود حسن بارسو xildhibaanada waxay ahaayeen markii hore fadhiday 61 xildhibaan ayay ahaayeen 61 xildhibaan cabdixakiin cali buure waxa uu helay 8 cod ayuu helay hal cod waa xumaaday axmed maxamuud xasan baasta waxa uu helay 52 cod ayuu helay sidaa darteed waa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ilaalinayana sharciga federaalka dowlad goboleedka iyo sharciyada kale ee galmudug intii codka si gaar ah umad celinta codkooda siisay intaan iyo codayna sidoo kale waan umad celinayaa doorashada meeshaan ka dhacdayna waa ku qanacsanahay doorasho xor halkan ka dhacday aad iyo aad baad umahadsan tihiin waxaan rabaa halkan inaan ka caddeeyo inaan diyaar u ahay insha allahu tacaala inaan la shaqeeyo madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka galmudug axmed baasto waxaan maray kitaab jaamul kitaabkii qur-aanka baan ku dhaartay hortiinaan ku dhaartay xilka aad ii gudataan inaan si wanaagsan u gudanayaan ku dhaartay muddadaas 8 bilood ah waxaan ilaahay la hortegayaa maalinka qiyaamo la hortegayaa inaanan idinku qiyaamin ee si hufan ee dowlad wanaag ah sharaf iyo karaamo ah mustaqbalka galmudug ah badbaadada galmudug ah isku keenista shacbiga galmudug ah midaynta galmudug ah tirtirista khilaafaadka hareeyay dowlad goboleedka galmudug iyo ilaalinta jiritaanka galmudug inaan ku shaqaynayaan hortiina ugu dhaartay runtii waxaa farxad ah oo aad iyo aad ugu faraxsanahay oo mahad gaar u celinaya xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug
oo sharafta leh oo runtii 89kii cadaado 2015 lagu dhisay ahaa oo runtii 3 sano iyo dhowr bilood aan soo wada soconay haddana ay noo hartay 40 sano 8 bilood runtii waqtigaas aan isla soo qaadanay iyo noloshaas iyo inta noo dhiman oo ilaahay inuu khayr noogu dhameeyaa waa idin mahadcelinaynaa runtii shaqooyinka aad soo qabateen hore iyo kuwa aad hadda qabateen iyo kuwa aad qaban doontaan runtii waa idinku mahadcelinaynaa runtii waxaan rabnaa inaan u sheego madaxweynaha cusub madaxweyne galmudug waxay soo martay muddo dheer waxay soo martay waqti adag waxay soo martay duruufo badan muddo hadda 1 sano ku dhow waxay ku jirtay hirib iyo kala dhacsanaan waxaa loo baahan yahay inaad arrintaas ku soo celiso oo si dhab ah uga shaqayso dib u heshiisiinta deegaanada galmudug